الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كيني دبك هذا وحنا برنامج كدبك هذا كجا هذا دونا شركة جودة فلنتا أوركا تي بي ألف تكريجا أيينو يجي دونا أو ما هذا جاي كسب بحن قامة هسي أيينو دول استاجي دونا صدقتهم بتكريجا يدولة ده إثيوبيا أنت مداهد بخلافات حوجن أيها كدحيي وكاس أولي بسيح وجيستي مركي رئيس الوزراء هدلك إثيوبيا وكل واقعين دور الشدة دي بالله جاي سبب الله حجر السدا وشجعي حابقا صف مركا كوفيد 19 هي شيء قومية تكرار معمول كذا أي جنف ككل فتان إسلام مركا سنة أي شيئين إن وحاس شرع الدرية إن وحاس شرع الدرية هاي وحكي شران وسنشرين عابقا كوفيد 19 عن دور الشدة دي بالله ودي كريس هذا درادات أي لجمع مارمان تا إن دستور كإثيوبيا له كان سمو يجونا أي بش أغسطس ماشي اللي وجرى دور الشقة بنيان رئيس الوزراء إثيوبيا وكذا واحد اللي وحى وشيء إن سنة رنتها سمرنا معقولة هين عدة طلاب عاصي يسكت أيضا أي عقاب كل وجهه دونتو هاتن waxaan eegi doonaa go'aamada ay soo saareen iyo shirkooda waxyaabaha kaga hadleen waxa ila jooga faranqeeyo sare jaamac gallad oo aad isha ugu hayay wararka la xiriira go'aankaasi ay soo saareen ururka TPLF jaamac soo dhawow maxay soo saareen TPLF maxay ka hadleen horta waxay ka hadleen xaaladda guud ee dalka Itoobiya haatan uu ku jiro iyo marxaladda iska daba wareegga ah kacdoonka dadweynuhu uu maartay hadda marayo meel aad xasaasi u ah muhiimadooduna waxa weeye in shacabka Itoobiya ay kiciyaan qodobada hadda shirkan ka soo baxay ama go'aamada ka soo baxay shirkii guddiga fulinta oo maalinada shalay had u qabsoomay inay xukuumadda ka hor keenaan shacabka meesha in maxaan ku dhaahayay nimankan la dhaafiyo siyaasiyiinta Soomaalida ee mucaaradsan farmaajo Soomaaliya maqli jirin villa Soomaaliya nimanka villa Soomaaliya fadhi iyagu nimanka kiiloomitir 4 maxay dhahay wax noocaas arad kiiloomitir way kaga dhigtayba arad kiilo sidii villa Soomaaliya ay uga dhigtay siyaasiyiinta mucaaradka Soomaalida iyagana arad kiiloodaas ay kaga dhigtay marka waxay marka koobaad si qoto dheer uga hadlayaan qaabka loo marin habaabiyay hanaankii dawladeed iyo hanaankii dalka uu ku socday ama systemkii dawliga ahaa ee dalka Itoobiya uu ku socday gaar ahaan waxay muujiyeen in gabi ahaanba hanaanka haatan ka shaqeeya meeshan magaca ay u bixiyeen in uusan ahayn hanaan sharciga dalka Itoobiya waafaqsan diyaarna oo ah inuu ku shaqeeyo wixii ay ku heshiisay qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya oo marka waxay aaminsan yihiin in hanaankan ama nidaamkan hadda meesha fadhiyaahi uu yahay kooxda hogaaminaysa maanta koox doonaysa in ay dalka dib ugu celiso nidaamkii kalitalisnimada iyo andinadka ahaa andinadku waxa weeye midnimada nidaamkii yani halka meel laga xukumahay dadka unitary government ama unitary systemkii in ay dalka dib ugu celiyaan oo gabi ahaanba ay ka takhalusaan hanaanka federalismka sidaa daraadeed waa in shacabka Itoobiyaanka gaar ahaan qoomiyadaha kala duwan siiba qoomiyadihii dulmanaa ama qoomiyadihii dhibaatooyinka waaweyn ay ku dhaceen gaar ahaan qoomiyadda Soomaalida qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Tigreega oo 27 sano ka hor kamid ahayd qoomiyadaha dulman in ay adkaystaan difaacooda si ay u ilaalshadaan ama u ilaaliyaan hanaanka dastuuriga ah ee ku dhisan qoomiyadaha ama bulshooyinka kala duwan ee midba dhaqanka iyo diinta ay tahay waxay kale oo ku eedeeyeen kooxda hadda talada haysa ee Abiy Ahmed uu garwadeenka u yahay in mashruuci biyaxdeenka Abay ama waxaan loo yiraahdo Great Renaissance Dam wax noocaas ah mashruuca dib u curashada Itoobiya wax noocaas ugu magac dareen mugti inay ka dhigeen mashruuc siyaasadeed oo loo adeegsaday in bulshada lagu beer laxawsado oo leeyahay kolba soo maartay tafta hoogay waxa lagu soo duulay biyaxdaankii bay leeyihiin bukuleey waqti Itoobiya xoog weelay biyaxdaanka difaacin hadii kala haysa soo cararta meesha saastayeen waxba yan dadka looga sheekayno lagu beer laxawsanayo aan lagu soo duulayaa difaac baan galaynaa maanta gantaa la sii qaada waxa suma shaqeynayaan bay Itoobiya xoog iyo difaac isku filan bay leedahay hays difaac kamana hadli karta mar dambe biyaxdaankan iyo arrimihiisa shacabkuma uma ala cali karo maxaa ala cali bar anagu meen ala cali jirnay markaan meesha haysan sidaan bar masal isu haysanay uma aan joojinay maalinkii aan faadfaadnay bay damcaan inay joojiyaan bay yiraahdeen
intaana indhacdays iyo xoog baan ku dhisaynay adeegsatii waadan yeelani soo maaha dee u banaa meesha ma mateli kartid Ethiopia mana xukumi kartid marka sidaa daraaddeed mashruucii biyo xidheenka ayay waxay ka dhigatay bay yidhaahdeen xukuumaddani waxa ay dadka ku beer laxawsato oo ku xaalad abuurto oo taageero iyo maxaan ku idhahdaa kasbasho shacab ay ku raadiso iyadoo oo dhinaca kalena ku tumanaysa hanaankii federalismka ahaa ee ku dhisnaa qowmiyaadka kala duwan ee shucuubta Ethiopia ay ku heshiiyeen sidaa daraaddeed shacabku waa inay u istaagaan sidii ay u difaacan lahaayeen hanaanka dastuuriga ah ama dastuurka ku dhisan hanaanka qowmiyadaha badan ee federaaliga ah taasi oo ay sheegeen inay tahay mid lama taabtaan laakiin kooxdani ay isku dayayso waliba axmaaradu in ay maaragtay bedelaan iyagoo Abiy Ahmed adeegsanaya mashruucanna loo istaago iyadana sidii iyada oo shacab iyo dawladba la isku duuban yahay iyadoo laga hadlaynin cidna oo laga yooyootamaynin gorgortan ma laha ee waa xaq biyo kama dhibcaanahay la hirgeliyo okay qodobka labaad isagana waxay markaa kadib baaq u direen shacabka qoomiyadda Tigreega waxay ugu baaqeen shacabka qoomiyadda Tigreegu maanta inay taagan yihiin wada kala goysa shacabka qoomiyadda Tigreegu halis iyo halis mid waa halista laba halisood marka waxa weeye labadaba say uga badbaadi lahaayeen iyo baaq ugu direen laba halisood waa maxay halista koobaad waa dawladda federaalka ah ee Ethiopia ee Abiy Ahmed uu hogaamiyo oo doonaysa in ay iska hor keento shacabka Tigreega iyada oo markaasi isticmaalaysa awoodii dawladeed iyo propagandadii dawladda iyo dhaqaalihii dawladda iyo sidaa iyo systemkii iyo siyaasadii dawliga iyada oo isticmaalaysa in ay iska hor keento qoomiyadda Tigreega si ay halka uga hesho vacancy ama meel ay maaragtay ka soo dusi karto way iska shareen moogtahay waa saas sida shaytaankii bay iska naareen kooxda ka xidhan Abiy Ahmed shaydaan caadi uu noqday yow shuwatay way iska naareen haye marka si ayna u helin si ay u hesho vacancy ama meel un ay ka soo dusto yay dawladda federaalka u xoog ugu jirtaa taasina waa halis ay yiraahdeen hadduu soo duso shacabkii la isku horkeen halista labaad waa shacabka Etoobiyaanka ah ee lagu abaabulay ama laga dhaadhiciyay kooxaha danleydu ay u sheegeen in shacabka Tigreega uu xasuuqay oo uu maaragtay 27 sano madaxa uu ka soo saaraa taasina waa halis kale iyadana mar walba in loo darbanaado loona diyaar garoobo difaaca danaha dadka Tigreega iyo deegaankooda in iyadana loo diyaar garoobo oo loo istaago qof kasta oo Tigreegana gacantana uu yaambada ku qabsado tanna uu qoriga ku qabsado sidii uu u difaaci lahaa dhaxalkii awowyaashood laakiin soo run ma in shacabka loo sheego maaragtay inay 27 sano soo garaacayeen 27 sano soo garaacayeen shacabka hadee ma ahayn shacabka Tigreega qaar baa dulmanaa oo dhibaataysana oo wixii inagu aan qabnay oo kala qabay system buu ahaa waa koox buu ahaa waxa hadda Abiy Ahmed uu sameeyay waxa loo qabsan karaa Oromo waxa Mustafa uu sameeyay waxa loo qabsan karaa Soomaali system baa sameeynaya waxan waa koox isku xidhan weeyaan TPLF-na koox waxa ay isku xidhan oo abaabulan oo si fiican organized oo ah shacabku ma shacabka Tigreega ah caadiga ah de qaar iska badraamayo oo de kibirkii meel walba kula dhacahay way jireen oo de qofka Tigreega waa laga cabsan jiray xaqiiqda fiican moogta Addis Ababa iyo meelaha marka la joogo qofka Tigreega uu sidiisu dawlad ku ahaaba niyo sidiisu shaalaqa ku ahaa marka laakiin de waxaan wixii sameynaya nidaam bay ahaayeen nidaamkaasi marka wuxuu geystay qoomiyadda shacabkii looma daldali karo oo maaragtay looma xukmin karo way jiri karaan qaar fikirka ka raacsan inagoo waan jecelahay hadda in la laayo axmaaro oo maxaan ku dhahay balaaya ku dhacdo oo ilaahay uu dhulka la gooyo oo dhibaatooyin badan ay ku dhacaan Soomaalidu iska jecel sababtoo dhibka inoo geysteen baa tira badan marka iyaga naftirkooda dhibkii loo geystay dadkooda inay dadka ka sareeyaan wiilkooda wiilka kale uu ka sareeyo ay maaragtay dad muuqdo oo laga cabsada ahaadaan way jeclaan iyaguba laakiin iyaga naftirkooda isku dulmanaa waxay marka baaq ugu direen in labada gacmood bidixdana ay yaambada ku qabsadaan midigtana ay qoriga ku qabsadaan ay u istaagaan difaaca dawladnimada Tigreega iyo dhaxalkii awowyaashood oo la doonayo si fudud in loo maartay caan wareejiyo waxay ugu baaqeen inay dhiig iyo dhaqaale iyo dhacaankii dadka Tigreega u soo baxay hanaankan federalismka ee la doonayo in lagu bedelo unitary system ama systemkii meesha dhexe laga maamulayay dalka oo dhan
oo barasaab laga soo magacaabi doono Maqale iyo Adigrat iyo Adwa iyo Aksum looga soo magacaabi doono Addis Ababa oo uu imaan doono maxaan ku idhaahdaa to nin Axmaara ama nin Oromo ah oo halkaa laga soo kabtuuray kadibna dadka maaragtay Tigreega ah wuxuu doona ku samayn doona waxyaalo maaragtay waxay u shideen cabsi bay u shideen iyo baabul khoof qaaq bay uga sheekeeyeen ilaahay oo dhan bay u sheekeeyeen oo markaas waad yaabaysaa dee marka waxa weeye baaqiyo noocaas ah ay shacabka Tigreegana u direen si fiicanna way u guubaabiyeen oo inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda iyo deegaankooda iyo ilaalinta hanaanka dastuuriga ee federalismka marka waxyaalahaas ugu muhiimsan waxay qodobka saddexaad sidoo kale waxay baaq u direen qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ku dhaqan dhamaantood waxay ugu baaqeen inay u istaagaan difaaca dastuurka iyo nidaamka federalismka ee dalka Itoobiya oo sida ay sheegeen ay kooxdani go'aansatay inay kaga takhalusto totally يعني إن لقى تخلص نظام كفدراليزم كأو بربرك يبابا قوميها كلا دون إثيوبيا وهل قوميها مركز أي نقول دون تمد النور دي دقالة يدعم بيض موتسطها سنة درادة سي أن تعالى أن لو قارن وهدف كاسي ونوهر جلين وإن أي كهر تجان بيلاهدين هذا أنت أو سيستم كانوا بيسنيه هاي وإن أي حوج يحاولوا بكون بحيان سيد اللغات تخلص لها وكركارك اللي هو يدارين لها توتالي بحق ما لهم إنه سيجي السيستم كان بيجن سيدا درادة الشعوب تكلا دوان إثيوبيا شعب ولبا مقالة دي سي ماشي يشوق وينو بانقاده سكاقاته أنا قلنا وحان بلان قاضي ناوي دهنا دان تي بيالفنا هاي إنان دان والبا إذن كقرب استاقنو دين سياسة دقالها وحوال بعمل عجيب واي أنو إذن كتاقيرين هيل إيه هورب وإن قرب تاقينه قوميد والبا هالكي تشوكتها كاقعدو ني والبا بانقاده هذا قاضو ماشا بحال كان عندافن سمعنا قرب واي haddii taasu ay dhici weydo dee qoomiyad walayba annagu waan ka diyaar garownay idinka iyo Axmaare iyo Oromo is haysta la isugu keenimaan maayo intaysa goor tahay aan ka diyaar garow ma aan ka hor tagno diyaar garow waa soo annagu waa diyaar garownay idinkuna kaca isu diyaariya hawshiina qabsada annaguna waa idin garab taaganna weydaan yeelaynin soo ma aha bahalku haydan cuno waraabu halkaas iyagana kaga gudbeen waay waxay baaq u direen beesha caalamka oo ay ugu baaqeen in ay sida ugu dhaqsaha badan siyaasadda ay kula dhaqmayaan shacabka Itoobiya ee la doonayo in dib loogu celiyo hanaankii unitary government-ga ahaa ay ka fiirsato waa in beesha caalamku faragelin kasta oo wax u dhimi karta dastuurka iyo jiritaanka nidaamka federalismka ee dalka Itoobiya ka jira ay beesha caalamku ka digtoonaato waa in beesha caalamku ay ogaato halgankii dheeraa ee shucuubta Itoobiya gaar ahaan shacabka Tigreega uu u soo maray iyo gleelida hanaan federalism oo qoomiyada ku dhisan kaasi oo ah midaan gorgorta lahayn beesha caalamku waa inay dhexdhexaad ka noqoto siyaasadda Itoobiya oo ayna u kala xaglinin ama u kala hilinin kooxaha iska soo horjeeda kooxdani waa in ay noqoto koox ay ula siman yihiin beesha caalamku kacdoon wadayaasha Oromada ee hadda halgan ku jira maamulka Tigreega iyo dhamaanba cid kasta oo systemkan faasidka adiidan waa siday u dhigayaan iyagu hadalkeen waa inay oola sinaataa bay yiraahdeen ee ay iyaga ula macaamilin maxaan ku idhaahdaa to si gooniya waxay meesha ka saarayaan oo ay meesha ka bixinayaan oo inkirayaan jiritaankii dawladii Abiy Ahmed garwadeenka ka ahaa waxay ku leeyihiin kacdoon wadayaashii iyo maamulka TPLF iyo Abiy Ahmed waa isku si loola macaamilaa haddii kale yaa weylakum waxay ku samayn doonaan garan mahaye waxay uga digeen marka maaragtay macaamilaadka dheeriga ah iyo awoodsiinta iyo taageerada ay ku taageerayaan Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa يعني فلك وكجود شيء أيوة مركب كل هذين إنه حسوق لنا كوضة دستور كينا وشبيه سيد رادد بوسن شرع باهين بقى دورشان وسقبنا هنين قبل لولم بس معامل كرام الله سيد رقم كرانا إنه يشيلون أوكي أو قدام بنتي وحكي هاللين ويسوقاتين حريتانكا تي في هذا وين فاهين رسمي اللي قبل حوالين صدق دقنا اللي سوداية موقتها إنترنت كنا وكحد تي في هذا وكحد هذا ستلات كنا كسر ستلات كنا كسر بدي ها تي في سكر الله حري كرمالها موقت تي في ستلات كبا laga saaray arintaas ayagana ka hadlayna walaac badan ku hay sababtoo ah tv dhowr ah jiray oo ugu afdheeraa kan ay dhahan halgan tv wayaane dimsi wala codka wayaana wax noocaas wayaan oo inuu wayaanaha waan ku caadi jiray moogta iyo way ku faanayaan ku faanaan baha hey
ina wayaanaha waan ku caadi wayaanaha iyo waxaan dhihi jiray moogtahay ayaga qofka wayaanaha hadii lagu dhaho waxa weeye iyaga agtooda sharaf buu ka leeyahay iyo ciz wal xambaariba waa halgamaa nimanka amaan ma ku caadi jiray ma wixii baa sii kala laba wayaane iyo waxbay sii kala yihiin adoo wayaanihi baa kala laba midna waa dirxi midna waa halgamaa inagu marka ka dirxigaan ula jeednay oo kaasa iyagu laakiin kii halgamaaga wayaane dimsina waa la yidhaahdaa wayaane radio way leeyihiin waa t v iyo idaacad iyo marka kuwaasa ugu afdheera waa radioga iyo t v-ga halgankii waa hadda dib u fureen waagii hore markay halganka ku jireen yuu raadiyuhu shaqayn jiray qaybta raadiyaha hadda waa dhaweyta markii laga saaray Addis Ababa laga eriyey dib barka afur ma waxay dhiseen t v satellite ah oo wayaane dimsi la yidhaahdo oo Al Jazeera oo kala ah luqad walba dhowr luqad ku baxaa laakiin ta ugu adag oo ugu fiican waa tan maaragtay habashiga iyo ma tan Tigreega ay dadkooda ku abaabulaan Tigreega marka TV-yada sababta loo xidhay in faahfaahin laga bixiyo si degdegana loo soo daayo dib loogu soo celiyo hawadii iyo ku soo gabagabeeyeen marka calaayati xaal anu muhiimadda marka u dhaadhacno muhiimadda waxay tahay in kooxdii TPLF farta haatan ay u muuqato koox ka faa'iideysanaysa marxaladda iyo waqtiga lagu guda jiro dhawaanna waa tii inagu aan sheegnay in ay maxaan ku idhaahdaa to Getachew Reda afayeenka kooxda TPLF oo ugu baaqay yani shucuubta kala duwan ee Ethiopia sidoo kale inay sameeyaan kacdoon gaar ahaan qoomiyadda Oromadana uu sheegay inay garab taagan yihiin oo hiil iyo hooba ay la garab taagan yihiin soo garan meel ay soo maraan baan jirin xuduud baan lahayn marka dhinacii arrimaha dibadda markii la fiiriyo waxaa soo baxay tiim isku xidhan oo siyaasadda Ethiopia soo afjaray gabigeediiba waa Tigray iyo Oromo meel walba labadii calan baa la isku wada Kenyana way ku darsadeen saddexdaa calan baa waxay ka shaqeynayaan galbeedka reer galbeedka kii ONLF iyo kii Oromada iyo kii Tigrayga aduu miyaas lahayd calanka ONLF iyo calanka Tigrayga la isku qabanay oo la isla xambaarsan oo la isla wataa hadda way isla wataan marka ma ONLF lafteeda ku beertay تما بوح هو موقتها وواحد سياسة النجاس موقت سياسة ما ركتي يعني صليق لهين سيدا ذا مركز شريته عدو جناها يعني ما أنت الظروف تي واحد مرة يساعد إن الإسلام مظاهرات إنه الإسلام مظاهرات يجي شري واحد كلام لما سمعين كراني أول هرنا بنانك هدي الأسبوع أركب بانجد الأسبوع بوبشري مركز على أي حال قومية تكريجو وحي سميسي هنان أبابول وهذا أيدون يسجدها إثيوبيا يدبد بقى إن أي كان دحمو قاتو قوميته أول هرة أي قدوم كجرتي قدوم سياسي مدلل بس أنا كسو جرتي دبد يجوده قوم دبد يجوده قوميتها إثيوبيا وحاول وحدين لمين الحين وحلو أركهي عدو marka hadda garan galbeed sameynaya hadda garan ma sameynayaan wayba hormuud bay u yihiin ma ba sameynayaan hormuud bay u yihiin calanka oo laftii calanka Oromada waxa wato waa iyagii baa soo tasho qaadanaya ma aha in oo laftii ay soo toloshay ama soo qaadatay calamadii Tigreega ma aha in Oromo soo qaadatay maxaan ku idhaahdaa to calamadii Tigreega ayaga tay wixii ba soo qaateen wataan ay ku mudaharaadayaan dadkiina markaas waxay noqonayaan mataqaanaa hal maqaar loo wado iska daba raacaya de markii calankaagi lagu horwado iska daba gelin soo ma kharash badan mu noogu fadhiya soo moogtay marka waa kaarta siyaasadeed iyo qorshe ay hadda dejiyeen way inay qoomiyadaha Ethiopia garwadaan u noqdaan gude iyo dibadba kooxdan ay ka hor keenaan qorshahaasna waxaad moodaa qorshe si xawli oo ku socdo qorshaha marka Abi Ahmed see kaga hortay karaa baslada kama hortay karaba inuu kaara inuu kala hortaga mooyaan gudaha horta dibadda kama hortay karo sababtoo dibadda wax taageera kuma haysto axmaaradii inuu ku haysan lahaa axmaaradina way isgaabisay hadda waxa ka dhabacanaysaa sababtoo waxay noqon ma rabaan in ay abuurtaan colaad intay colaad abuurtaan in maanta iyagii ay qoomiyadihii kale ee Ethiopia ee ay rabeen bari inay xukumaan hawa beenaha iska dhaadhiciyeen moogtahay bari qoomiyadaha xukumi lahaydeen hadda chance kugu wanaagsan yahay xukumi lahaydeen hadda cadaawadaha ka sii sameysano yaan leedin midoobin yiraahdeen oo way isgaabiyeen TV-yadoodina de hawada laga saaray TV-gii oo afdheera axmarada isaad oo kuwan maaragtay hawada lagu dubtay ku jiraa
marka axmaaradu ilaa xad hadda way isgaabinaysaa sababtoo ah iyada cidina ma jecla iyada cid siyaasad ku raacaysa totaliba Ma jirto xitaa xilligii ay qoladan TPLF tu haysatay cid siyaasad ku raacsanayd mayna jirin marka hadda duruufta unbaa dadka isku khasbaysa TPLF hadda ayay garwadaan u tahay Oromo kow TPLF cidna garwadan cid u dooratay ma jirto ama ka dhigatay laakiin iyagu qorshaha ay wataan baa wuxuu yahay inay Soomaalida iyo Oromada iyo Canfarta iyo Gambeelaha inta inay isku duudaan qoomiyadaha laga iyo wixii kale ay ka raaci karaan Oromada iyo inta kale oo ah qoomiyadaha laga badan yahay ama qoomiyadaha la yaso ama maxaa la juqum xisbooj baa la yiraahdaa qoomiyadaha dulliga ah Oromada mooyeen iyo Axmaarada mooyeen inta kale qoomiyadaha dulliga ah Soomaalida ugu weyn Soomaalida kamid baa kow yada ah juqum xisboojtii saas u yaqaanaa saas warba markii shirku qabanayo waxa weeye axzaabta waxa weeye afar baa isbahaysi ahayd soo maaha afarta xisbi mooyaane shanta kale ee soo ilaa sagaal dawlad goboleed moogtahay waxay oran jireen maaragtay juqum xisbooj baa la yiraahdaa caadi agaar dirigit miyaa la dhihi jiray wax noocaas bahwadaagta agaarkaas waxa weeye marka la sharf la qurxinayo weeye la sasabayo laakiin marka lagu istaag ma caadi marka loo sheego ma ku istaag ma caadi marka loo sheegayo juqum xisbooj baa la yiraahdaa juqum maxay tahay dadka qurunka Soomaalida kowka inta kalena Soomaalida ka sii dambeeyeen Soomaalida laga hadlo juqum xisbooj uga baxdo ma wali iyada hogaaminaysa biyo ugu darbadaad waxaas waxba kama jiraan ma waxaas khiyaali baa lahaa khiyaali baa lahaa waxaas marka ala ay tahay marka Oromiyo juqum xisbooj iyo hogaaminaysa TPLF taad astaghfirullah waa ku qoslaya waa juqum xisbooj ma taas fiira waxa weydiisaa Soomaalida iyo siyaasiyiintooda marka hadalka yar la qurxinayo ee laga sheegaya idaacadaha yaa waxa la dhahaa agaar xisbooj laakiin marka la juqum baa marka caadiga ay tahay ma kaftami kartid ma hadli kartid shirka waa juqum xisbooj baa qoomiyadaha laga adag yahay ama qoomiyadaha dulliga ama qoomiyadaha maaragtay qurunka ama qoomiyadaha maaragtay la yaso ma dhihi kartid adiga qof axmaara iyo maxaan ku idhahdaa meel jooga shaahka ma cabin kartid ma xaqiiqda laga hadlo aad baad mahadsantahay jaamaco waa yahay waqtiga inagu dheeraaday bal halka aan ku joojino bayaanka ay soo saareen TPLF iyo sheekadii ka dambeysay halkaas aynu ku joojinaynaa insha Allah wixii ka soo kordhay dib baan idin kala wadaagaynaa tan iyo kulan dambe